hello ma la joogaa hello hello ha ma la joogaa ma lay maqlaa haddaa lay maqlaya haa la soo qoro asxaabey may maqashaan aan salaamayaa asxaabta السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان أصحابتي ماشي كجرتان ودا سلاميا مالله مقلا هدادي مقليسان ها soo qor please waa idin tuuga waa idin baraya ها سواكا جوس waa si fiican hadaba السلام عليكم دمان أصحابتي ماشي كجرta aad baan u salaamayaa gabigoogaba wada salaamayaa السلام عليكم waxaan u soo fadhiistaa halkana mawduuc ka hadla maanta yaa mawduuc baan ka hadlayaa okay waa si fiican oo ii sheegteen inaad maqlaysaan soo bata la soo yaaco fisan baa soo gashay waa idin sheekeynayaa igu soo yaaca reer Facebook okay iga raali noqda telefoonka soo dhacay telefoonkii baa dhacay wuxuu yiri iga kala jooji buu hadalka ma karee ha okay naasi fiican dhammaan asxaabta halkan salaantay soo gashay aad baan u salaamayaa waxaan rabay inaan ka hadlo mawduuc yar ayaan maanta rabaa inaan ka hadlo mawduucaasaan rabaa inaan idinla qaybsado laakiin muhiimaddu waxa horta marka hore waa inay dadku soo bataan soo bata waad mahadsantihiin dhammaan asxaabta halkan iga saameysa aad baan idin wada salaamayaa mawduucan rabo inaan idinkala hadlo waxa weeyaan maanta guurka dhalinyarta hablaha yaryar iyo odayaasha guurka odayaashii hablaha yaryar baan rabaa inaan idinkala hadlo ha gabdhaha beenaa sheegaya okay ma noo bilaaba sheekadeena asxaabay diyaar mootiin inaan idin bilaabo imika mawduuca okay mawduucan maanta aan ka hadlaya waxa weeyaan wiilashii dhalinyarta ahaa oo odayaasha suuqa ka saareen taasina waxay keenaysaa aad weyn kowdhe inaan dhalinyar oo shabaab oo 15 markuu shan jir ay yaro quruxley guursado waa habaar ma fahanteen marka maxaa la raada arrinkaasaan rabaa inaan ka hadlo maanta aniga laftigaygu odayar ban imika raadsanayaayo aan isku qabanaya ma fahanteen okay haddaba aan saxaabi aan mawduuceena inoo bilaabo sheekadan idin hayana aan idinka sheekeeyo sababta aan idin sheego odayaashu ay u guursanayaan hablaha yaryarna ay ugu ogolaanayaan inaa loo guursado wiilashii dhalinyarta ahayd maxaa ku dhacay kowdhe markaa taasaan ka hadla sababtana waxa weeyaan markuu wiil dhalinyar ah iyo inan dhalinyar ah shukaansadaan jacayl wada qaadaan inankii yaraa doorasho ku jiraa ma fahanteen markaa doorashadii ayaa waqtigii ka ridaysa gabadhii intaa wuxuu isleeyahay armad tu ka qurux badan amba tu ka fiican heshaa u yarkaadi buu isleeyahay markaa waxaa dhibaatada keenaya ugu weyn waxa weeyaan
odaygii ayaa isaguna ka faa'iideysanaya maadaama inankii yaraade kolba dib u dhigayo gabadhii kolba dib u dhigayo dhowr sannadood uu rabo maxaa la dhahdaa inuu gabadhii la sheekaysto gabadha laftigeega waqti baa ku waxaa arkaysa yar aw iga raali ahaada asxaabay alo SDC okay hold on please iga raalaha telefoon baa iga soo dhex galay oops iga raalaha hello yes SDC okay please hold on yersuga asxaabay iga raalahaada telefoon baa live anoo ku jiro telefoonka soo dhacay adaan kuu gudbiyey ما أنا حسن hello oo ku soo gudbiyey hore ما مقلي soo dhacay hore ma garan maray okay iga raalahaada asxaabay telefoonki waa naga jiray waxaan doonay sheekada aan idin wado sheekadan idin wado waxay ahayd sababta inanta dhalinyarta ah ku qasbaysa inuu guursato oday weyn wiilkii dhalinyarta ahaa wuxuu rabaa inuu waqti qaato maalinba maalin ilaa waa wiil dhalinyaro moogta maalin kasta wuxuu baranayaa hablo yaryar oo qurqurxoon wuxuu isleeyahay inanta bal dib u yara dhig ayadana saacad baa ku socoto xisaabtamaysa ma fahanteen marka maadaama saacad gabadhii ku socoto oo xisaabtamayso waxay go'aansanaysaa eeg mararka qaar baad guurka qaar waad turaysaa moogtahay ilaa waxay is leedahay hablihii yaryaraa qayrkeeda markay aragto ubad dhalayoo guursaday dee waxay soo dhansa inta lagu odhan lahaa guun baad noqotay ee ka cararayso guunimada intay ka cararayso ayay maxaa la dhahdaa ay ku dhacaysaa oo istuuraysaa ayay ku dhacaysaa oday weyn oo 90 jira odaygii weyna already noloshiisa isagu soo qaatay waqtigiisii soo qaatay xaas buu soo yeeshay caruur buu dhalay maxaa la dhahdaa maadaama xaas iyo caruur dhalayna de isagu noloshii ayadana waxay rabtaa wax nolosha imika la bilaaba ayay u baahan tahay moogtahay gabadhu maadaama ay u baahan tahay nolosha wax la bilaabo waxa fiican inay hesho wiil dhalinyar ah oo sideedoo kale ay nolosha isla jaan qaadi karaan inamadii intooda badan waxaa ka dhaadhacsan hablo waxay u guursanayaan odayaasha because lacag buu haystaa no lacag ma haysto waxaa jira odayaal aan waxba haysan laakiin hablo waxay u guursanayaan inaa la idhaahdo waa lay qabaa just magac naxaas baan ahay ninba guunimadii bay ka cararaysaa moogtahay gabadhi marka wiilasha dhalinyarta ah maxaa la idhahdaa hadda soo kacay waxaan leeyahay hablaha waqtigaa ka ridina waqti baa ku socda ha lagu yaaco yani waxba la sugsugin kaalintiina yaan laydinka qaadan gaboobo 40 jir ah inuu inantii yarayd hoosta gashado gebigeygu halkaa awaali cas moogtahay marka asxaabta qaaliga ee Facebook igu jirta wiilashan la hadlayaa wiilalow hablaha waqtigaa ka ridina shukaansiga beentaa ka joojiya 4 naagood iyo 3 naagood ku hasaan ka joojiya gabadhu waxaa ma jecla wasalaha telefoon baa soo dhex galay gabadhu waa iska qalbi xab waxay jecel yihiin ma anigu oday ma rabo inaan bahalkan weydiina wuxuu guuraa adiga oday ma rabta anigu oday ma rabo waayo waxaanan u rabin oday waxa weeyaan dhimaanaa karay oday cajuusa siniintiisa baan ku agaboobayay aniguna lamid baan noqonaya islaam baan noqonaya moogta marka walaalayaal asxaabta wiilashan la hadlayaa hablaha saacada ka ridina shukaansiga beenta ka joojiya dumarku iska qalbi wanaagsan yihiin wixii lagu dhaahdo way qaadanayaan dumarku waa hablihii idin dhalay ya markaa ka ilaaliya maxaa la dhahdaa inaad qalbi xanuun ku ridaan ma fahanteen oo dee maxaa la dhahdaa saacadana ha ka ridina waayo ninku dee 40 jir iyo 50 jir hadduu ku guursado isaga waa nin waqti kama dhacayo laakiin gabadha 5 haday dhaafto markaas 25 markay dhaafto walwalgalaya talow xilimaad adna guursan talow xilimaad caruur yeelani talow xilimaad maxaa la dhahaa mustaqbal samaysani talow xilimaad arki doontaa ubadkaagii ood dhashay ayay markaa hablihii odhanayaan moogtahay marka odayaashuna iga raalahaada laakiin odayaashu way qaldan yihiin waxay u qaldan yihiin ayay waqtigooga soo qaateen islaamay soo qabeen hadduu doono odaygan guursanaya inantiisa ayay laagtay ma xishoonayo sideebu inan yaroo inantiisa leeg uu xaas uga dhigan midda kale ayadana ayadaa kasii daranba waayo oday aabbahaa leeg sidee baabad naag ugu noqono sidee baad ugu hamoonba waa qalad ma fahanteen asxaabay marka kuwa odayaasha guursadaanaha iga raali noqdaan laakiin runtaan u sheegayaa
gabadh kastana waa anigaa sheegay sababta maxaa la dhahdaa ay ku kaliftay inay maxaa la dhahdaa oday guursato waxa weeyaan intay ka cararayso waqtiga is leedahay niyo yani saacadu kaa dhicinaysa soo qaba gaadho isdaba qabay la waad gaboobi wayaan sheekadu ma fahantay marka ilaahay ka baqa oo ilaahay ka baqa oo hablaha ha loogu yaacaban kuuri haddii kale dee habla yaro ina yaro qoreysha 15 marka odayaashii qaadaana maadaama carmal markay noqotay rawaxada la dhimanayaa waqti badan ma sii waaraye aduu doono dhilma deynayaaba gibigiisba mar ayaga xarmalaad goranaysaan inta hablu fresh ka yihiin quruxda badan yihiin inanimada iyo haystaan ka gaara taasaan idin kula talinaya hablahan waxaan leeyahay u kaadiya wiilasha dhalinyarta laga waramiyo qaar wanaagsan oo guuriyo mustaqbal rabaa way jiraan waqti siiya aad la sheekaysataan marka asxaabay saasan idin kula talinayaa hablahow yaa hablaha saasan kula talinayaa inay inamada dhalinyarta eegaan inay odayaasha iska daayaan oday aabaha leeg oo hooyadaayo ka hooyada da'deeda soo qabay sidee baabad naag ugu noqonaysaa waa qalad taasi inamada dhalinyartaana ayaguna laftigooga ha baraarugaan guurka laguma khasaaro maxaa la dhahdaa diinteenaaba tiri haddaad fakri ka naxdid waa inaad guursatid haddaad kasii yaabtid waa inaad sii guursatid ma fahantay marka maadaama sidaa tahay asxaabay maadaama sidaa ay tahay oo aayadaasi inoo sheegtay inaad markaa fakri ka yaabtid aad gabadh guursatid haddaad kasii yaabtid inaad guursatid guurka laguma khasaaro waa lagu qaboobaa waa barwaaqo waa farxad raggan cabsoonaya dhalinyarta guurka ka baqanaya gabdhihii ka baqanaya imka sanadkaa maanta raggi gabdhihii baabay ka baqanayaan oo waxay leeyihin armay kugu ximaantaa armay naag xun kugu noqotaa sidoo kale waxaa guurka qurbuhuna horta waaba guurka ugu waalanay jiray isagu qurbaha waa la isguursanaya waa la isfurayaa hablo waxaad arkaysaa dhalinyara oo ninkooga soo furay ma fiicna inaad ubadkaaga aad 150 aabo aad u kala samaysid waxa fiican labada qof marka ugu horeysa inay isfahmaan oo noloshooda qaybsadaan oo de maxaa la dhahdaa si ay iskugu noqdaan lamaane nolosha inta ka hadhay de ay maxaa la dhahdaa isla dhameystaan ma fiicna furitaanku sidoo kale aad baan uga hadlayaa furitaanka waayo ilmaha markii aabihii hooyadu kala tagaan saameynta ugu weyn ilmaha ayay ku dhacdaa waayo ilmihii waxaad u geynaysaa nin aan aabihii ahayn amba waxaad u geynaysaa gabadh aan hooyadeed ahayn waxaa dhici karta in caqabado badan kala kulanto oo kaalintii aabanimo ay tagto iyo kaalintii hooyanimo taasna qof garanaya unbaa garan soo marka asxaabay waxaan leeyahay ha laysku samro waqti ha laysa siiyo ubadka hadday ubad meeshii imaadaan ubadka dartood ha layskugu samro ma fiicna inaa la degdego furitaankuna ma fiicna maxaa la dhahdaa adigana kuma fiicna ilmahaagana uma fiicna mustaqbalkaagana uma fiicna marka asxaabay waxaan doonayaa inaan kaa ka hadlo habluhuna marka ugu horeysa labada qof inay marka ugu horeysa sheekada shukaansigu markuu bilaamo ayaaba la odhanayaa maxaa la dhahdaa markuu haasaawuhu bilaamo hey marka haasaawuhu bilaamo ayaaba la odhanayaa gabadhay ha sidan macaan oo la isku waalanaya wixii xiisa hadhow tale markii guriga la isla imaado xiisa ma imanayo moogtahay labada qof laakiin markay dasiiro masuuliyada sheekaystaan ay maxaa la dhahaa wax isla meel dhigaan ay isguursadaan taasi ayaa maxaa la dhahdaa farxadda keenta guurkana laguma khasaaro guurku waa qabow waa nimcad waxaad samaysanaysaa qoys dhan ubad baad dhalaysaa mustaqbal baad yeelanaysaa marka asxaabay wiilashan la hadlaya wiilasha gabadhi nin ma guursan karto moogtahay oo intay de nin u tagto kuma odhan karto i guurso waa ceeb caleyg laakiin de dhaqankii waxay la imanaysaa xarakaadkiio xarakaadkiiba ayadu la imanaysaayoo dee ninkiibay dee shukaansanaysaa ma fahanti way sheekaysanaysaa kadib laakiin guurku wuxuu ka imaadaa mar kasta wuxuu ka imaadaa ninka ayuu ka imaadaa guurku gabadha kama imaado soo raggu ha usoo bandhigaan gabdhaha la sheekaystaan inay guursadaan waayo labada qof waxay u sheekaystaan inay amba isguursadaan guur amba gaabsi de nin gaabsi rabana de gabadhi waqti kuma luusgaraynayso taan waa ognahay laakiin baan buu sheegayaa isagoo gaabsi ka rabo koorna xabiibti macaanay waan ku guursanaya waan ku jecelahay la-aanta abaar waaye aniga la-aanta ma noolaan karaayay indhaha nuurkoogii baaba tahay kowdhe marka wallaahi asxaabay xitaa ragga qaar baa dee in horta midda kale aan waxaan aaminsanahay labada qof hadday isfahmaan isjeclaadaan nolosha dee farxadeeda ayay helayaan moogtahay ubadkooguna markay arkaan hooyadii iyo aabiyo isjeclo dee wuxuu noqonaya ilmeero jacayl lagu koriyo quruxdiisa isagaaba laga fahmeeyey udgoonkiisa waxaa la yidhi awlaad jacayl lagu dhalay
udgoonkoogaa laga gartaa ma fahanteen marka hablaha loo naxariisto dumarkuna ragga ayaguna laftigoogu dumarkun maaha waxa raggun maaha waxa dhibaatada keena laakiin dumarka qaar baa dhibaatada keena ninkii oo jecel imka waxa ka dhaca Mareykanka ninkii oo jecel gabadhii ayuu maxaa la dhahdaa way jecel yihiin laakiin waxay ku oranaysaa adeer hadda doonaysid inaan ku guursado maxaa la dhahdaa meeshan degan ay soo guuro isaguna noloshiisa iyo mustaqbalkiisa wuxuu ka samaystay xaggan oo de ma guuri karo marka waxay ku oranaysaa hadaan guur anu hooyada kama soo fogaan karo maxaa la dhahdaa wadada ku qulqulday nagu kala wadba saasaba lagu kala tagayaaba qaar waxa isguursada qaar waxa jira isguursada waxaan anigu umul baan hay uur baan fool baan hay uur baan leeyahay soo waxaan tagayaa hooyadii baan u tagayaa marka maadaama hooyada u tagayo adiguna maxaa la dhahdaa adeer deeg kaale marka ninkii ma guriga hooyadeed ayay gelinaysaa gabadha marka la guursado sida diinteen iyo dhaqankeedu yahay waxa weeyaan inay gabadhu ninkeega ay la degto uu meeshu degan yahay la degto taa weeyaan hablaha yaryar ee makurka wada ee le kaale adeer maxaa la dhahdaa ila soo gal de guriga hooyada inaad u geysid waa qalad ninkaaga mase hooyada gurigeega ma inaan la yaal buu noqonayaa waa ceeb dhaqan iyo maxaa la dhahdaa dhaqan iyo waxaan leenahay dhaqan baan leenahay diin baan leenahay soo marka waa inaan diinteena iyo dhaqankeena lagu dhaqmo habluhu waa inay guurka sida fudud u baabinayaan ay iska joojiyaan waayo qofka garoob noqonaya waa ayad inkastoo nabigeena calayhi salaatu wasalaam u duceeyay carmalka haddana laakiinse ma fiicna guurku wax weyn waa masaajid dhan oo la dhisay masaajidkii haddaa la dumiyo waa dhibaatay leedahay marka asxaabe walaalayaal waxaan kula talinayaa inaa laysku samro laysku dulqaato inaa gabadhina ninkii u samirto ninkina gabadhii u samro de farxad iyo jacayl iyo si loogu dhiso odayaashina laftigoogu dee waxay ka faa'iidaysteen gabdhi waxay maqleen ninku dhali karaa ku dhiqi karaa saadipon waxaa jira wiilo dhalinyar ah oo 20 jir ah caqliga ku yaalaana aanu ku jirin nin 50 jir ah ma fahantiin maadaama sidaa tahay maxaa la dhahdaa wallaahi waxa weeyaan marka maadaama sidaa tahay wiilasha dhalinyar oo caqli jira oo la fariidina oo mustaqbal jacayl samaystaan laakiin si aan chance dumarkii siinayn ama ay amba jeebkiisu dawlito oo aan chance la siinayn baa jira de marka waxa la leeyahay waxa fiican horta rizqa ilaahay baa keena labada qof markay isguursadaana ilaahay baa waxa ka aamirnaysin ku qoray marka walaalow inamaduna guurka ku dadaalaan xaaraanta laga fogaado fusuqa laga fogaado hablaha la ixtiraamo qiimaha habluhu lahaayeen berigii awooyaashin habluhu qiimaha lahaayeen waa inaan loo soo celiyo taasa maxaa la dhahdaa taasa wax sameynaysa waayo hablaha laftigooga ayagiiba qiimaha iska ridin ko aniga midhan oo life safarisanaya mid kastaba iska ka daawanaya inkastay tani waxana ay tahay waxana aanay ahayn dhaqankeenii inaad codkaaga meel fog laga helo laakiin haddana mararka qaar inaad fikir isweydaarsado way fiican tahay habluuna ayaga laftigoogu qiimahooga ha ilaaliyaan sharaftay lahaayeen ha ilaaliyaan maxaa la dhahdaa dhaqankoogana ha ilaaliyaan den raguna dumarka qiimaha lahaayeen awalka hore dumarka sidaan ogeyn geeliyo waxa laga bixin jiray qori intaasoo geeliyo qori baa laga bixin jiray gabdhuhu meesha raadka ay maraan ayaa la raadin jiray laakiin imika sanadka maanta dumarkii baa batay dhaqamadii gaaladaynu qaarkood dhaqanadii gaaladaynu raacnay marka ilaahay de maxaa la dhahdaa xaq ahayna garansiiyo maxaa la dhahdaa ha ilaahay xaq ahayna garansiiyo asxaabay waxaan idin leeyahay okay maxaa la dhahdaa waxaan idin leeyahay asxaabay maxaa la dhahdaa waqtiga isa siiya hablaha la ixtiraamo guurkii dee guurka hore ha la soo celiyo dumarka maxaa la dhahdaa qiimahooga ha la ogaado furitaankan degdege la kala boodayo ha la iska ilaaliyo marka waa kaas sida xaalku anigu waxaa soo fadhiistay inaan ragga ku idhaahdo oon u sheego ku idhaahdo hablaha qiimahooga hala ilaaliyo xaasas laga dhigto odayaasha waaweyn si ay uga waantoobaan waayo odayaasha waaweyn walaalo uma fiicna inan yaroo 15 oo ubax soo baxaya inay oday weyno noloshiisii soo laastay oo gebigiisuba cimri degdeg qaadsiisan inay maxaa la dhahdaa ha ayay maxaa la dhahdaa inay maxaa la dhahdaa oday weyno de
noloshiisii soo qaatay oo ubad dhalay inay yaroo nolosha maanta bilow u tahay ay maxaa la dhahdaa inay dee inay maxaa iga raali ahaa hadalkiiba igu dhegin waayo meel kale maskaxdeydana waa idinla hadlaysaa meel kalena oo ku maqanahay soo iga raali noqda markaa walaalayaal ilaahay xaqa hana garansiyo anaga laftigayga waan iska dhalinyaronimownay waxyaabihii foosha xumaa baan qurux u aragnaa anigayga laftigaygan idinla hadlaya aan iska bilaabo wax saxa ma sameeyo maihi qof perfect ah maihi waxyaabo badan baa iga qaldan waxaa dhici karta inaan waxyaabo aan qurux ahayn inaan qurux u arko inaan mararka qaar aad odhan sida stylekaaga markaad labisatid inaad gacmaha waxaan xidhatid kuma soo baxayaane bal sidan kale kusoo baxay sidan kale u yaraa marka dumar baynu nahay maxaa la dhahdaay waa la qaldami karaa waana laga toobad keenaya insha allah hadduu ilaahay nagu simo waanan dad wanaagsanna waa noqonaynaa inamaduna sidoo kale ayaguna ha ku dadaalaan aniga layma soo furin laymana guursanin weli inan baan ahay dhalinyaro ah laakiin waxaan ka hadlayaa waxa ay dadku maxaa la dhahdaa bulshada dhibaatada haysata dee hablahana inaan u hadlo xaq banahay because anigayga waa dumara waa inaan ka hadlo raggana sidoo kale waa inaan u hadlo markaad aragtid ina yaroo qurux badan oo qalanja oo oday weyn ilaahay baa weyna dee oo gebigiisu wakhas noloshiisii dhammaystay guursado inan yar taa qalbiga iga xanuuno wallaahi markaan arko taasina niyadjab bay igu keentaa markaa walaalayaal saasaynu isku ognahay insha allah gulyo gobonimaynu isku ognahay ilaahay xaqa hana garansiiyo anagana ilaahay maxaa la dhahdaay xaqa aniga laftigaygana hay garansiiyey soo duceeya waxyaaba badan baa iga qaldan waxyaaba badanna waan ku saxsanahay qofku dhinac kastaba perfect kama ahaanayo oo dee dhinaca uu ka fiican yahay dhinaca uu ka xun yahay baa jira ma ogtahay markaa walaalayaal dee waan yaro kulaayo dagaal baan idinkula soo galo odayaasha baan idinla yimide taasi waxay dee muujinaysaa ma ogtahay hadal waxaan ka damqaday saameynta iyo waxaasan ka damqaday saameynta odayaasha ku yeeshan dhalinyarta hablaha yar guurkooga waxaan arkaan facebooka boqolo kada heblaayo hambali oday gaboobo sii dhacaya bismillaahi raxmaan kii odayga sii dhacaya geenaysaa yaa markaa walaalayaal saasaynu isku ognahay inamo dhalinyaro shabaabaa jira inamada yareerna intay doordoorashadii waxaa ku jiraan mustaqbalkooga ha samaystaan hablahooga ha qiimeeyaan hablahooga maanta dee ninku waxaa la yidhi nin waliba horta wiilasha soomaaliyeed waa inay hablahoogi baa dhagax raacaya nin madoobay raacayaan nin carabay raacayaan taasna maxaa wacan idinkaas sabab u ah waayo markaad hablahaaga ilaashay hablihiina markaad ilaashaysid ood qiimahooga garatid cid kale ma raadsanayaan moogta laakiin markaad idinkiiba aad kaarasiin weydaan aad raali gelin weydaan aad been u sheegtaan niyadda ka jebisaan aad khiyaantaan taasi maxaa la dhahdaay tani markaa waxay keenaysaa dhibaatay keenaysaa oo dhibaato weyn bay keenaysaa ilaan dee waa inaad maxaa la dhahdaay walaalayaal gabdhihii dee markaad mas-uuliyaddeeda aad qaadaan maxaa la dhahdaa aad dhinac kastaba ka raali gelisid eed jeclaatid eed jacayl u muujisid gabadhii dee walaalayaal waxay keenaysaa markaa inay gabadhii ay dee ayaduna ilaan gabdhuhu waa iska qalbi jilicsan yihiin wixii lagu idhaahdo way qaataan way maxaa la dhahdaa waa hablo wanaagsan laakiin inay inantiinu raacdo nin madow oo dhagaxoo gebigiisaba diin haysanin oo uskaga iyo inay inantiinu raacdo nin caraba ragga soomaalida horta anu firsan ahaan markaas ka hadlo inaan wiil soomaaliya ciddu doono qabiilku doono ha ahaadee inaan guursado adduunkaan ugu jecelahay nin ajaanib oo dee maanta dadkaygu afgaranin amba dhaqankayga lahayn inaan raaco ma jeceli marka hablaha laftigoogu ayagu way jecel yihiin naa kastaana way jeceshahay inay guursato gabadh kastaaba way jeceshahay inay guursato nin tolkeeda oo inaadeerkeeda oo la garanayo dintiisiyo meeshu ka imiyo asalkiisa la yaqaan laakiin dee raggiibaa u sababaya inay hablihii rag kala raacaan ma ogtahay waayo ayagiibaan qiimeynaynin ayagiibaan qiimahooga fahmaynin markaa maxaa la dhahdaay hala qiimeeya hablaha sharaftooda hala ilaaliyo waa gabadh inaadeertaaya waa gabadh walaashaaya waa gabadh tolkaaya meelunbaad iska soo meelunbay maxaa la dhahdaay meelunbaad iska soo gashaan waa gabadh tolkaaya gabadhu waa inaadeertaa inaad qadar jabisid niyad jabisid maaha haddaanad niyadu haynin ood jeclayn ood qof kale noloshaada ku jira runta u sheeg waxba waqti ha ka ridin adna waxba naftaada been laguma maaweeliyo walaashaana been laguma maaweeliyo marka saaxiibayaal an waxaan idin leeyahay waa inaad gabdhahu qiimihii horey lahaayeen waa inaad u soo celisaan nin inaan rag isagunbaa gabadha qiimo u yeeli karaa waayo wuxuu qiimo ugu yeeli karaa
maxaa la dhahdaa markuu dee sharaf u yeelo marwo ka dhigto guri dhigto naagaha dumarkooga gabadha dumarkoogna ayaga u qiimeynay isku yeelaan oo ragooga adeecaan oo ixtiraamaan sidii hooyooyinkeen ayay yeesheen ahaayeen inaynu ahaano dhaqankii ka daba qaadano weeyaan midda kale waxaa yidhi baruur baa baruurya qurmise waxaa jira dad xun oo dee ayaga dabeecadooda asaliyan u xumaanta u dhashay oo aan bedeli karin oo xumaan u dhashay baa jira kuwaasaa xumaynaya saameyn ku yeelanaya inamadii wanaagsanaa iyo hablihii wanaagsanaaba ma fahanteen kuwa laftigooga ma aha inaad dee baruurtaa baruurya qurminaysa inaa maxaa la dhahdaye inaad maxaa la dhahdaye aad asxaab halkana weerar ugu hayso oo ayagaan markaan qoraalkooga akhriyo ay maskaxda igaga sii dhegayaan ma fahanteen marka ayaga laftigooga waxaa leeyihin caadi iska dhigeen adayaal sidoo kale waxaa ka yaabay facebooka waxaa ku jira dad caadiyan maskaxiyan xanuunsanayaba qaarkood wallaahi waxaa jira dadka qaar xanuunsanaya oo ayagoon waxaad ka hadlaysid dhegaysan amba commenteerkaad waxaad soo boost garaysa akhrisan ayaa cay amba wax xun iska soo horreysiyaan taasina waa qalad horta markaad wax ka hadlaysid waa inaad fahantid mawduucu wuxuu yahay marka aad ka hadashid laakiin haddaad iska jawaabtid dhibteed intaa waxay rabaan in indhaha dadka soo jiitaanoo dee loo jawaabo laakiin anigu dee wixii si xun u hadlayno ma jawaabayo wixii si fiican u hadlayno waad mahadsantihiin baan leeyahay waa kaas de asxaabey aamiin walaalo aamiin aad baad mahadsantihiin asxaabta halkan ii ducaynaysa asxaabta halkan weerarka igu haysana saaxiib caadis ka dhiga baan leeyahay anigu hadiyadu 4 cisho inaad iswaashid maa inaad qof walaalkaa inaad aflagaadaysid kuma fiicna waa inaad maxaa la dhahaa imika durba waxay daawanayaa asxaab gaadhaysaa 440 marka dee kolley waxay rabaan waxaan ka hadlaya inay dhegaystaan fikradaha waa la isweydaarsan karaa laakiinse ma aha inaad dee waqtigaaga yar inaad cay ku seegtid cay kaaga baxo amba qof intaad ku mashquulaysid aa caytamaysid inuu waqtigu kaaga lumo waa laga qurux badan yahay soo markaa waxaa fiican amba waqtigaaga amba qofka ha daawanba wuxuu ka hadlayo oo iskaga dhaqaaq waa wixii kuguma socdaba amba qofkii de si fiican ula dhaqano wuxuu ka hadlay intaad dhegaysatid ood waqti siisid maxaa la idhaahdaaye inaad waqti siisid qofka waad ku odhan kartaa waxa ka qaldan waad u sheegi kartaa waayo waxa ka qaldan dee xaq baad u leedahay inaad fikirkaaga ka dhiibatid laakiin inaad iska caytantid maaha amba waxun aad ka hadashid yaa waa qalad caydu reeban xumaantu reeban cayna malihiyo anigu waan is ogahay inaanan cay lahayn alxamdulilahi rabbilcaalamiin waayo hooyada macaan ilaahay haydaaye sahre maxamed ibraahim ayaa dhaqan iyo tarbiyad fiican igu soo korisay inkastoo dee dhararka laga yaaba xijaab de haddaan xijaab xidhana wuxuunbaa layga sheegaya waa waxaan ogahay moogtahay inaa soomaalidu dee iska hadal badan yihiin moogtahay xijaab haddaad soo celididna waxaa lagoona waxbaa kaa qaldan adiga caadi matid haddaad isa soo qabisidna is astur diintii baad ka baxday markaas sidina kuma ficno soomaalidu marka waxaan is yiri sidii stylekaaga adigu aad ku soo bixi lahaydun u labiso ma fahanti dhalinyarnimadana wayna qaadaysaa dhalinyarnimada laftigeeda meesha ku jirto dee qofku markuu dhalinyar yahay wuxuu rabaa inuu deendhaha dadka soo jiito uu iska yara qurux badnaado ma fahanteen marka in adeerayaal waa ka dadka laguma mashquulo waa run inaa lagu habsaamana maaha ina waqtiga iskaga ridana maaha asxaabta halkan iga salaamaysana inkastoon qoraaladu aada degdegii dhaafayaan oon arkayn aad baan gebigoogaba wada salaamaya anoon kala saarayn maanta mawduucan ka hadlayna waxay ahayd hablaha qiimahay lahaayeen min zamaan waa inaa loo soo celiyo oo ixtiraamkiiyo sharafta ay lahaayeen waa inaa la dhowro waa inaa hablaha la garto imika nin raga ayaa wuxuu soo qoray telefoon baa soo gale waxaan idin yidhi ayaa soo qoray nayaadaas muxuu halkuu dhaqanka isagu ka keenay isagiibaa nayaa qofka waxaa la baa jira loogu sheego wax ma fahanteen laakiinse inaad goobtaan soo markaa inamada waxaan sheegayaa caytamaya ayagu ma dhaqan wanaagsana waayo ayagiibaa caytamaya qof caytamayaana maaha qof dhaqan wanaagsan iyo sharaf leh qof caytamaya isagiibaaba u baahanba inaa dhaqankii tarbiyadda la baro anagu weligan waxaa macayno cidna ma aflagaadayno wixii de munaasib aanu hadalnana aanu aragnana waan soo fadhiisanaa waan ka hadlaynaa maxaa la idhaahdaaye kuwan de dadka caayaye wax ka sheegayana
waxaan leeyahay walaalayaal ilaahay xaqa idin garasiiya ayaga laftigooga anuu idin macaayayo hadal xun idinkama odhan inkastoo asxaabteeda inta u badan ee facebook igu jira ay yihiin dad wanaagsan laakiinse waxaa jira dad aan facebook kuugu jirin oo friend la ahayn oo dadka xitaa dadka qaar flowing ah waxa wanaagsan oo dhaqan wanaagsan oo si fiican u hadlaya fikirkooga xitaa mararka qaar waxa qalada waan samayn karaa luuqa intay soo galaan firsana waxa walaal kuma fiicna iska daa ana waan qaataa wixii aan qaadan karayna maxaa la dhahaa